waxaa muhiima marka in aan bil Ramadaan annagoo ku jirna oo Ilaahay aan ka duceysano ama ducada Ilaahay uu naga aqbali doono inaan u duceyno dalkeena inaan annagu isku soo dhawaano inaan dhibka hadii Ilaahay yiraahdo aan ka codsano Ilaahay ama ka barino inuu naga saaro laakiin waxaa muhiima marka koowaad inaan ogaano in qabiil aan lagu gaarayn qarannimo haddii qabiil uu nageenayo qarannimo ku dhawaad 30 sano maan ahaaneen dawlad la'aan ku dhawaad 30 sano maan ku jirneen dhibaato waxaa muhiima marka in aan horta ogaano annagu waan isnaqaanaa annagu waa isgaranaynaa waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo walaalaha oo isla nool oo shacab ah kulligeen laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego laba qiso yar yar galabta waxaan ka yimid Addis Ababa waxaan ka qayb galay shirkii IGAD shirkii inta aanu bilaaban ayaan waxaan fadhinay qol aniga iyo qaar kamida wasiiradii la socday waxaan noo soo galay madaxweynaha Uganda Museveni wuuna salaamay anigu wuxuu yiri ma waxa tahay ra'iisul wasaarihii farmaajo markaasaan waxaan ku yiri waxaan ahay ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed wuxuu yiri laakiin farmaajo ku magacaabay markaasaan iri ha wuxuu ugu yiri haddii aad Soomaali tihiin oo aad isku af tihiin oo isku dhaqan tihiin oo isku diin tihiin oo aad dadkiina leynaysaan ma garanayo si aan kula hadlee wuxuu ugu yiri naarta af Ingiriis buu ku hadlaayay naarta maxaa af Soomaali lagu yiraahdaa marka wasiiradii la fadhiyay qaar kamid ah qaarna waxay yiraahdeen naar qaarna waxay yiraahdeen jahannama markaasuu yiri Soomaaliyay miyaadan jahannama ka baqaynina maadaama aad leenaysaan Ilaahay caruurtiisa ku dhawaad 30 sano Soomaaliyay waxaad leenayseen dadkiina miyaanad Ilaahay ka baqaynina inuu idin ciqaabo waa qof aan muslim ahayn oo madaxweyne wadan weyn ka ah ayaa sidaa yiri anigoo ka xun ayaan wasiirada qaarkood iyo anigu maalinta ku xigtay waxaan la kulanay madaxweynaha Suudaan markuu na salaamay uu na soo dhaweeyay ayuu yiri Soomaaliyeey waxa tiin isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin Ilaahayna wuxuu idin siiyay khayraad badan iyo dal aad u qurux badan maxaa idin ku dhacay marka ilaa wax looga jawaabo ma haynaa intaan aamusnay dadkeenii meesha fadhiyay oo wasiirro iyo aniga iyo taliyaha nabad sugidda ila socday markaasuu su'aashii isaga nooga jawaabay markaasuu yiri anaa garanaayo waxa idin ku dhacay shaydaan baa madaxa idin ka galay hadda waa sidaas ma turjumaa xataa shaydaan baa madaxa idin ka galay horta koow annagu waxaan isu haysanaa inaan ka kala nimid gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Soomaaliya gudihiisa waxaan isu haysanaa inaan nahay qabiilo kala duwan waxa laga yaabaa in qabyaalad ama dan gooni ah ama dan gaar ah ay baabiisay qarannimadii haddii aad marka ka fikirtaan adduunyadu waxa ay naga aaminsan tahay waxa tusaale idin ah safarkii yaraayon hadda ka yimid waxa la igu soo yiri wax walba waad haysataan maxaa idin ka maqan dhul baad haysataan idin ku filan dad yar baad tihiin khayraad baad leedihiin isku af baad tihiin isku dhaqan baad tihiin isku diin baad tihiin wax idin ku filan waa haysataan maxaa idin ka maqan waxaan naga maqan waa inaan Ilaahay u noqonaa waa inaan Ilaahay barinaa oo ugu shukrinaa nimcada uu Ilaahay na siiyay laakiin waa inaan aqbalnaa inay adduunyaduna nala yaaban tahay annaguna aan isdhibaataynayno waxaan idinka codsanayaa in iyadoo bil Ramadaan ah aan ku ballanno inaan dawladnimada ka wada shaqeyno inaan aqbalno inaan isla xisaabtanno inaan aqbalno in dadka Soomaaliyeed oo dalkan ku nool inaan dalkan wada leenahay inaan aqbalno inaanay cid kale lahayn cid kale dalkan inaan aqbalno sida kaliya oo horumar ku gaari karno inay tahay inaan qabyaaladda ka baxno airportka Addis Ababa markaan ka soo baxayna ayuu nagu yiri wasiiradiina soo dhaweeyay mid kamida airportkan uu nagu yaraaday mid kale aan dhisanaynaa oo ku dhisanaynaa $4 bilyan waxay qaadanaysaa inuu dhamaado 5 ilaa 10 sanadood
adduunyadu waxay ka fikiraysaa 10 iyo 100 sano soo socda annagu waxaan ka fikiraynaa nus saaca soo socda qarax miyaa dhici doona xabad miyaa kugu dhici doonta xoolahaada miyaa la dhici doonaa waa inaan waqtigii isaga ahaa inaan ku bedelnaa waqti qarannimo waa inaan isu dul qaadanaa sanadkan iyo sanadka soo socda iyo kan ku xiga iyo kan ku sii xiga kan ku sii xiga waa inaan dulqaad yeelanaa dawladnimadu ma ahan bil iyo labo iyo sanad iyo labo iyo saddex dadkeennan waaweyn oo halkan isugu yimid dhallinyarada yaryar oo halkan joogta oo jaamacadaha ka soo baxda oo shaqo la'aanta ah iyagoo shaqo la'aana ayaanan haddana u hayn dalka ay xaq noogu lahaayeen dib waa inaan u fikirnaa marka waa inaan dib u fikirnaa oon ka fikirnaa sidii aan dhallinyaradan yaryar oo 75% ah bulshada ka ah waa inaan shaqo u abuurnaa haddii aan shaqo u abuuri weyno iyagaa dab ku noqonaya bulshada marka fursadda ugu weyn oo aan leenahay dalkan haddii aan nahay Soomaali waa dhallinyaradaas khatarta ugu weyn oo hor taaganna waa iyaga haddii aan shaqo u abuuri weyno haddii aanay dareemin inay dalka wax ku leeyihiin haddii aanay dareemin inay fursad leeyihiin waa inaan ka wada shaqaynaa sidii dhaqaalaha waddankan loo kobcin lahaa si loo kobciyo waa inaanay qaar yar oo annaga naga mid haysan dhaqaalaha waddanka waa in dadka dhamay u sameeyeen yihiin waa in qofkii raba inuu ganacsi abuurto uu leeyahay fursad uu ganacsi ku abuurto waa inaanu dawladda ka baqin waa inaanu ka baqin in annagu haddii aan xukuumadnahay aan laaluush ka qaadayn waa in innagoo isla wada jirna aan musuqmaasuqa meel uga soo wada jeesanaa waa inaan nabadgelyada wax ka qabannaa waa inaan nabadgelyada wax ka qabannaa halkan annagoo fadhina ayaad maqlayseen inuu qarax dhacay hadda qof walbo idinka mida telefoonkiisu ku booday kulligeen waan damqannay ilaahay ha badbaadiye waxaa laga yaabaa inay dad Soomaaliyeed oo walaalaheena ku dhaawacmaan laakiin waxaan noqonnay inaan aqbalno inuu qarax meel ka dhaco aan ka wada cararno in qof meel lagu dilo oon ka wada orodno in dadka dhulkooda la qaato annagoo u jeedna aan iska aamusno in cadaalad darre ay jirto oo aan aqbalno inay cadaalad darre jirto haddii qof idinka mida ay ka fikirayso dawladnimada waxaa lagu keeni karaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waad khaldantiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddu iyo baarlamaanka labadiisa aqal haddii la isku daro 100% ma dhamo bulshada Soomaaliyeed sideebaad marka 400 ama 500 oo qof oo Soomaaliyeed uga sugtaan iyaga kaligood inay ka shaqeeyaan danaha bulshada dawladnimadu waxay tahay in la isla xisaabtamo waxay tahay in qof walba uu istaago dawladnimada qof walba meel inuu ka qabto waa inaan annagoo wada jirna la dagaalanaa shabaabka haddii kale habeen walba oo isu nimaadno halkan ama meel isugu nimaadno qarax baa dhacaya xukuumadda iyo dawladdu waxay ku bixisay waqti iyo juhdi badan bishan Ramadaan inaan wax ka qabanno amniga waxaan uga qabanay xoog xoolo iyo maskax Soomaaliyeed kaliya waa bilow inta aan ka qabanay hadda waxaan rabnaa inaan 100 jibaarno laakiin ma yeeli karna haddaadan idinku gacan siinina haddii aan dhaqaalaha waddanka la kobcin shaqo lama abuuri karo dhaqaalaha waddanka lama kobcin karo haddii aan amniga wax laga qaban amniga wax lagama qaban karo haddaanay dawladda iyo shacabku isgarab istaagin Soomaaliyeed waxaan soo marnay ku dhawaad 30 sano oo ummadda Soomaaliyeed ka khasartay waxaan hortaagan fursadii ugu weyneed oo soo martay ummadda Soomaaliyeed sanado badan markii laga soo tiriyo fursadan wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed soo martay fursadan aan isleenahay waxay isku soo dhaweysay dawladda iyo shacabka fursadan yididiilada ku abuuraysa abwaanada iyo dadka qaba baahida gaarka ah fursadan soo kacisay dumarka Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed fursadan ay dadka Soomaaliyeed oo dibadda jooga bilaabeen inay yiraahdaan dibadda waa isaga soo tageynaa dalkeenan ku soo noqonaynaa waxaan rabaa caawa oo Ramadaan ah inaan markhaati ka wada noqono cidda laga rabo fursadaas inay uga faa'iideyso bulshada Soomaaliyeed waa inaga halkan fadhina halkan waxaa fadhiya madaxda dumarka Soomaaliyeed
madaxdii dhalinyarada madaxdii aqoon-yahanada gudoomiyihii gobolka Banaadir xukuumadii golaha wasiirada dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax soo baratay dad badan oo kala duwan oo qaybaha bulshada ka mid ah magaalada Muqdisho degan inta halkan joogta waa madaxdii qaranka madaxnimadu ma ahan inaad wasiir tahay ama ra'iisul wasaare tahay ama madaxweyne tahay waxa weeyaan meesha aad bulshada uga jirto haddii aad dhalinyaro tahay oo aad magaalada jidadkeeda ka nadiifinaysid waxa tahay madax haddii aad hogaaminaysid dumarka Soomaaliyeed waxa tahay madax qof walba oo qayb ka ah bulshada oo halkan fadhida waxay qayb ka tahay madaxda qaranka maadaama marka idinku aad tihiin hogaamiyaashii bulshada maadaama idinku aad tihiin cid la xisaabtami lahayd madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka waxaan rabaa inaad qayb libaax ka qaadatiin waajibka idin saaran haddaadan idinku u soo istaagina shacabkiina cid u soo istaagaysa malaha haddii aan aqbalno inuu qarax dhaco oo qof la dilo oo jidku xiran yahay inay baagamuuda jirto aanay shaqo jirin oo dhaqaaluhu uu eber yahay oo musuqmaasuq uu jiro sidaanan ku sii jiraynaa 50 sano soo socota ma sidaasaan rabnaa Soomaaliya inaan ahaano sidaan haddaanan rabin inaan ahaano waa inaan bilownaa sidan si ka duwan aniga iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan laakiin ma shaqayn karno haddii aadan idinku gacanna siinina haddii aad professor jaamacad dhiga tahay waxaa laga rabaa inaad qaybtaada qaadatid markii aad shaqada ka soo baxdid inta aad shaqada joogtid oo caruurta iyo dhalinyarada wax baraysidna inaad ku hogaamiso dalkan siduu nabad ku noqon lahaa haddii aad miidiyada ka tirsan tahay waxaa laga rabaa inaad Ilaahay ka baqdo oo aad dadka Soomaaliyeed u sheegtid waxa xaqda ah kaliya waxa dhabta ah oo aan beenta ahayn haddaad tahay qayb kale oo bulshada ka mid ah culummo tahay waana ummadda Soomaaliyeed u sheegtaa sida ay shabaabku xaqdarro ugu shaqaysanayaan haddaad tihiin haweenka Soomaaliyeed oo ahaa hormuudka bulshada Soomaaliyeed waa inaad mar labaad u soo istaagtaan qarannimada Soomaaliyeed sidaas daraadeed waxaan idinka codsanaynaa annagoo diyaar u ah inaad nala xisaabtantaan inaan wax isu ogolaanno marka hore inaan isu dul qaadanno in haddii aan hore dembi u kala galnay aan iscafinno inaan aqbalno dawladnimadu inaanay bil iyo labo iyo sanad iyo laba ahayn inaan ogaano in jiilka naga dambeeyay ay xaq nagu leeyihiin oo haddii aan xaqaas ka soo bixi weyna aad ogaatiin ilmaha aad awoowaha iyo ayeeyada u tihiin inaanay haysan la heli doonin waddan ay ku noolaadaan inaan ka wada shaqayno qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed inaan dhammaystirno sharciyada noo dhiman si dadka kala duwan ee bulshada gaar ahaan kuwa qaba baahida khaaska ah ay xuquuqdooda u helaan in guryahan aan duduminay aan annagu gacanteena ku dhisno inaan dib u soo noolayno iskaa wax u qabso inaan istaagno oo qof waliba waxa uu ku bixin karo uu ku bixiyo haddii aad fiirsatid khalad bulshada dhexdeeda ka socda haddii aad fiirsid qalannimada oo la leexinaya adigoo ka hadli kara waa inaad ogaataa inay dembi kugu tahay haddii aad og tahay meel shabaab looga hortegi karo oo aadan sheegin waanaad og tahay inay dembi kugu tahay haddii aad leedahay aqoon aad dadka kale ku hagi karto ood la aamusto waa inaad og tahay inay dembi kugu tahay waxaan idiin ballan qaadayaa annagu inaanan ka daalin inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada laakiin waxaan rabaa kulanka inaan shaqo ku bedelno waxaan caawa oo bil Ramadaan ah ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay qalbigeenna isku soo dhaweeyo
inaan noqonno kuwii qarannimada ka hormariya qabyaaladda iyo qabiilka inaan noqonno kuwii dalkooda u istaago dalkooda dhista waxaad haysataan fursad aad dadkiina iyo dalkiina dhibka uga saartaan waxaad haysataan xukuumad iyo madaxweyne diyaar idinla shaqeeyaan waxaan idinka codsanayaa inaad qaadataan qaybta waajibka idinku ah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu